qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa iskugu soo baxay fagaaraha khayriyada degmada waxayna dhalinyaradan oo dhambaal hambalyo u direen gudoomiye ku-xigeenka cusub ee la doortay maalintii shalay waxayna ku sifeeyeen dhalinyaradu inuu garab istaagi jiray dhalinyarada iyo dadka jirjiricsan. waxaan horta halkan iskugu nimi inaan u hambalyeeyno maayir ku-xigeenka cusub ee degmada Garadag mudane Sahal Maxamed Ismaaciil oo maanta loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka degmada Garadag. waxaanu leenahay Sahal waa xildhibaan horta markaa xildhibaan buu ahaa aad u fiican oo dhalinyarada isfahmaan kana soo baxay xilka uu qabtay degmada ee ah maayir ku-xigeenka xildhibaan Sahal dhalinyartu waa taqaanaayo waa xildhibaan la shaqeyn jiray dhalinyarta oo dhan oo aad iyo aad u firfircoona dhalinyartuna maanta halkan isaga un bay u soo istaagtay inuu hambalyeeso aad iyo aad baan u hambalyeeynaa maayir ku-xigeenka degmada Garadag. maayir ku-xigeenka cusub Sahal Maxamed Ismaaciil oo ah xildhibaanada ugu firfircoon degmada Garadag oo ah xildhibaanada ugu waxqabadka badnaa waxaan leenahay hambalyo soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow maayir ku-xigeenka degmada maayir ku-xigeenka cusub ee degmada Garadag Sahal Maxamed Ismaaciil hambalyo maayir ku-xigeenka degmada Garadag ee cusub Sahal Maxamed Ismaaciil oo leeyahay welcome ku soo dhawow xilka cusub lagu magacaabay waxaan ilaahay akugu asturo Sahal dhako oo maanta loo magacaabay xilka oo loo dhaariyay waxaan leenahay maayir ku-xigeenka soo dhawow marka hore waxa xildhibaan firfircoon oo dhalinyarada la shaqeeya iminkana waxaan ka sugnaa inta ay ka badan meeyaan la sii shaqeyso hambalyo iskugu nimina oo dirno maayir ku-xigeenka cusub ee magaalada Sahal isagoo si fiican ula shaqeyn jiray markuu xildhibaanka dhalinyarada iminkana raba inuu halkii dadaalkiisa ka sii wado xildhibaanka cusub ee Sahal Maxamed Ismaaciil Ducaale aan leeyahay xilka cusub ee lagu doortay maayir ku-xigeenka degmada Garadag ilaahay xilka cusub ee lagu doortay kugu asturo dhammaan dhalinyarada degmada Garadag maanta isku tiriyaan inuu hambalyo maayir ku-xigeenka labaad ee degmada Garadag mudane Sahal Maxamed Ismaaciil oo ahaa xildhibaanadii ugu firfircoonaa intii uu xilka hayay hadeerna loo magacaabay maanta maayir ku-xigeenka degmada Garadag leenahay xildhibaan welcome baan ku leenahay maayir ku-xigeenka soo dhawow dhammaan dhalinyartii horan waxaan taas u diranaa ayuu saadiyay ilaahay naxariistaado marka labaad waxaan tahiyada u diranaa gudoomiye la doortay mudane Maxamed Ismaaciil waan leenahay ilaahay xilka ugu asturo aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa xildhibaan Sahal Maxamed Ismaaciil oo ku guuleystay gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa waayo waxaan nahay dhalinyaradii shucuurteedu aad bay kacsan tahay waxaan nahay raggii fartooda ku soo saaray baan aad iyo aad u hambalyeeynaa mar labaad hambalyeeynaa gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Sahal Maxamed Ismaaciil gudoomiye ku-xigeenka cusub ee maanta la doortay Sahal Maxamed Ismaaciil waxaan leenahay mudane xilka lagu doortay ma xil fudud ilaahay maxay tolay kugu asturo xilka kulli xil qaadiyad qaabka ilaahay ku fududeeyo maxay tolay ilaahay kula garab gacan qabto halkan waxaan sidoo kale tacsiin uga dirayaa gudoomiye ku-xigeenka hore degmada Yuusuf Cabdi Axmed ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo isaga la iyo salaam ku-xigeenka cusub ee degmada Garadag Sahal Maxamed Ismaaciil kaasoo markii hore ahaa xildhibaanka xildhibaanada degmada kuwa ugu firfircoon waxqabadka qaban waxqabadka badan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad xilka ka soo bixi doonto waa xil culus sida ugu fiican aad u gudan doonto insha Allah tacaala wax badan baan ka rajaynaa inaad qaban doonto hambalyo uga dirayaa gudoomiye oo doortay maanta xilka Mr. Sahal waxaan tacsiin uga dirayaa gudoomiye ku-xigeenka hore degmada ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo amiin waa Raan Maxamed Raan telefishinka caalamiga Star TV degmada Garadag.